asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waad ii salaamay dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena. asxaabay soo dhawaada, waad ii salaamay. asxaabay janaalkan baryaan wax cashara ah soomaanan gelin, dib aan u dhacay awgeed oo mashquul ayaan galay. sidaas awgeed waxaan soo diyaariyey wax lagu magacaabo checkmate patterns. haddii aad isweydiinaysid maxaan ka faa'iidayaa checkmate patterns, horta waa noocyada ay u kala baxaan checkmate-ka. haddii aad marka aadan garanaynin ama aadan soo barnin, hadhowdii haddii aad aragtid, waxaa la rabaa in qofka kaa soo horjeedo ciyaarta kula dheelaya inaad mataqaanaa isla markay maskaxdaada kusoo dhacdo. haddii aad aragtid mid ka mid ah patterns-kii ama noocyadii checkmate-ka, isla markaasna aad uga faa'iidaysatid. That's why ciyaarta chess-ka loogu soo bilaaba end game-ka, sababtoo ah si kastoo middle game-ka iyo opening game-ka aad perfect u tahay, haddii aadan garanaynin end game-ka oo sida checkmate loo sameeyo aadan garanaynin, ciyaartaade waa waxba yahay. marka saas awgeed waa that's why aan mar walba end game-ka aan xoog u saaraa. cashirka maanta waxaa lagu magacaabaa Arabian Mate. Arabian Mate wuxuu la mid yahay marka aan fiirino midkii hore ee ahaa Instation Mate, sababtoo Instation Mate waxaa iscaawinayay fardaha iyo qalcadda. sidoo kale hadartan waxaa iscaawinaya fardaha iyo qalcadda, laakiin waxaa u dhexeeya positionka, sababtoo ah positionka uu hadda fardaha taagan yahay Instation Mate wuu ka dawanaa. So Arabian Mate waa kan. marka Arabian Mate is a checkmate pattern that the future the unique ability of the knight with help of the rook. So waxaa iscaawinaya marka waa labadaas. example-ka koowaad marka haddii aan fiirino, boqorka madow wuxuu taagan yahay in the corner oo geeska uu taagan yahay, meel uu dhaqaaqana ma jirto. inta waxaa ka taagan waxaa ka haysto waa fardihii, sidoo kalena inta waxaa ka haysto fardihii. that's why haddii aan askarigan qaadno, saddexdii waxyaabaa la fiirin doonaa oo ah checkmate-ka intuusan dhicin saddex waxbaa la fiirinayaa. kow, ma jiraa cid boqorkan safe ka dhigto oo xubintan checkta ku hayso ka badbaadisa. midda labaad oo ah ma jirtaa meel uu ku ordo uu ku baxsado. haddii la waayo mid saddexaadaa jirto oo ah protection. so hadda haddii marka aan askarigan yaallo h6 aan dilo, waxaa jiro protection oo ah waxaa isoo hor istaagi doono qalcaddan, balse qalcaddan markay isoo hor istaagto waxaan awood u leeyahay inaan dilo, sababtoo ah booskaas waxaa ii hayo fardahayga. boqorkana awood ma lahan inuu dilo. that's end of game. so hal mid waan ka xumaay, maxaa jirto haddii tusaale hadda markaan qalcaddan digro ciyaartu way dhammaatay, laakiin haddii uu fardahan uu difaaci ahaan lahayn, dee ciyaartu way dhammaan lahayd. waxay soo galaysaa marka iyadana capture ma dili kartaa, ama boqorka inuu dilo ama xubintiisa inuu disho. so that's end of game. aan kusii socono marka example-ka labaad ilaa iyo 3 example 4 example aan fiirinaynaa. hadda waxaan awood u leenahay marka boqorka inaan dale mar kale aan Arabian Mate ku sameyno. haddii aan meeshan check ka dhahno, meeshaas aniga haysto check ayuu ku jiraa, sidoo kalena intan anaa haysto halkaas ayaan checkmate ka saari doonaa. example-ka saddexaad aan fiirino. so waa check, then haddii halkan uu soo galno waa checkmate, haddii xaggaas u aadana waa checkmate. so haddii halkan uu soo gali lahay oo fardahana cid ii difaacda aysan jiri lahayn, ciyaartu way dhammaatay, laakiin already xagga uu sii aaday, ciyaartu way saasay ku dhammaatay. okay, waxaan dhaynaa check oo halkan ah, then halkan iyo halkan aniga ku dhagan, halkaas uu aadi doonaa qalcaddana. horta mid kale ogaada, chesta intaadan checkmate samayn ama move-ka aad samayn, waa inaad ka fikirtaa, aad maskaxda kusii haysataa wixii dhici doona. hadda fardahan haddii aan inta keeno waa check, wuxuu ku qasban yahay force move, meeshuu qasabka waa inuu aado waa inaa fiiriso. halkaas uu aadi doonaa, then qalcadda ayaan soo qaadi doonaa, halkaasaan dhigi doonaa, ciyaartan u dhamaatay. sababtoo inta kuma laaban karo, fardayga already ka qabsaday. check markaan dhaho, fardaha halkan ka haysto, intana fardaha ii hayo, then leenkan dhanna waxaa ku teedsan qalcaddii, marka meel u baxa ma laha, waa inay ku sawiranta wax dhici doona. okay, mar kale markaan aan fiirino waa check oo halkan ayaa iga bixi doonaa, geesku aadi doona, waa sidii hadda oo kale. okay, kana waa la mid. marka waa mahadsantihiin. maanta cashirkeena intaas ayaan ku gabagabeynaynaa. haddii aad doonaysid inaad akhrisatid ama example aad fiirisid,
sidoo kale fiiri hadda example kan oo kale waxaad samayn kartaa example kan oo kale hadda waan sameynaynaa okay haddaba haddaan fiirino waxaan umaleynaa inay isku mid yihiin so that same soman I hope inaa waxba qaldin example waa sidaan oo kale macnaha haddii aad checkmate patterns-ka aad maskaxdaada ku haystid ay kuu sawiran tahay sidaan idii sheegay waxaad uga faa'iidaysan kartaa qofka kaga soo horjeedo hadda tusaale fiiri queen sacrifice aan sameynaa oo askarigaas ayaan dilaa qalcadan haddii meesha ii banayso waxaa dhici doona Arabian meat oo halkaas ayaan geli doonaa qalcada ayaan halkaas gelin doonaa so ciyaartan saasay ku dhamaatay already that's end so marka waa inaad checkmate patterns-ka aad please barataa waadna mahadsantihiin cashirkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay